لي لها النو هذا الصوماليين يوري مسمى من كان يوغندا أوتريا حدر الله به عيد ميس مرة منه مدونينه وحبك مرة منه وحبك مبهنين إذا ما يدون قفليين معهم كل شيء جاي هو كيبون قفليه أنا قاعد قفلن سومالي أردن ديار محمد أنا نسكت عنه وحلا لو إحنا نصور عدو إحنا نسكت عن ديار بعون إن قلبت قادم وضي يا أنا قاعد سديت باجرة وقادني ونسكت عليه عدو ما لدك على مين نكست بهنوي قال يا مسلم نكست مصور أنا هذا قرد أنا برتل ما بتكلم عنه يا لكن نكست على الصومالي تصور كانوا ديارنا هنا نسكت الساعة تن هذا مدحوينها يوغندا hadda ku dhawaaqeen waxaan qaadanaya oo aan ku calaameynaya inay tahay dagaal lagu soo qaaday calanka Soomaaliyeed wallahi haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay aad iyo aad ayaan wax nahay madaxweyne Museveni isagoo madaxweyne Afrikaana isagoo igad ku jira isagoo ciidamadiisii nabad ilaalin u joogan Muqdisho in uu yiraahdo Soomaaliya dawlad kama jirto dawladaha kalena uu qariyo oo yiraahdo waxaan أنا أشجعين دبلاسيات كاس وواحد لقى حماد مدحوين مزفني أكسونو إن أنو هاي أركي أفريقيا سجاشن يكوي وحي كوري أركي أفريقيا أيانو هاي أفريقيا أنا أيا علنك أولني حداي أنا مصيبة نجوها بستي إن أد كوتشستو أكسونو لباحي تشمنا ولا سوكب لباحي تشمنا ولا سوكب Soomaaliya waxa ay libax Afrikana libax ayay u ahayd ogsoonow inay saxadii ku soo noqon doonto Soomaaliyana ay noqon doonto arkii Afrika mar labaad waxa aan ku leenahay ciidamadaada uma baahin nagala bax taageeradaada uma baahin nagala bax haddii aad Soomaaliya u aragtay meel bulaacada Soomaaliya ma aha meel bulaacada horta waxaa fiican qofku marka uu hadlayo inuu ka fiirsi badan sameeyo waliba nin weyn oo madaxweyne muddo badan ahaado ruuq cadaaya inuu maanta horta hadalkaasi ka dhaco waa nasiib darro aad iyo aad baan uga xumahay waxay ahayd inuu haddii uu kolley diblomaasiyadiba celinayso inuusan diicidna faragelin qaran jiro oo magaca leh oo maamuus leh oo la siman oo macnaha ka soo horreeyay waliba isagu uga horreeyay Soomaaliya madaxnimada uga horreysay Museveni sidaa awgeed waxay ahayd inuu ka xishoodo kelmadda iyada oo si diblomaasiyadu hoo qaabaysan hadalka la qaadan karo oo u dhigo balse hadii bade uu yiri kuwa kale ii diidaysa ma midabta koor baa markaa inuu kuwana caayo oo aflagaadeeyo kuwana uu ka gaabsado waxaan u arki karaa markaa nin cabsi ka qaba kuwa in macnaha wax culays ay kaga yimaadaan Soomaaliyana aan culays ka qabin buu u arkaa arrintaas ninkaas oo ku dhawaaqay ee ahayd Soomaaliya dawlad ma laha waxa weeye waa arrin nasiib darro ah oo meel kaga dhaca oo dalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya sharaf kaga dhaca arrintaas waxaan ka leeyahay waa arrin nasiib darro ah ninku mas'uul hadduu yahayna waxaa fiican waxyaabaha qaarkood inuu ka fiirsado ayaa habboon annaga waxaan aaminsanahay inaan dawlad nahay oo sharciyeysan oo adduunka ka jirta Ugandana ka magac dheer laakiin waanu yar leecnay leecitaankii ciidamada Uganda inay soo galaan taasaa keentay marka waxaan u arkaa in adduunku uu aqoonsado inay dawlad ka jirin inuu rabo si ay ciidamadiisu meesha ugu sii jeeraan dhaqaale uu ku helo marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha ciidamada Uganda ee dagaalka galinayna meesha iska fadhiya kharashka iyo dhaqaalaha ku qaadanaya madaxweynahooduna dhaqaalaha ku qaadanaya si degdeg ah in dalka nooga baxaan hadal nin weyn ilaa ma ahayn halkaas hadal khalad ah oo foolxun buu ahaa laakiinse waxaa ka sii foolxun Soomaalida 30 sano maxaan ku dhahay halkaas dhigtay nin waliba uu maxaan ku dhahay ninkii de maxaan ku dhahay kama iska siibo uu Soomaaliya iska siibayo ee hadal xumo wax laga xishoodo lahayn wadamo kale ayuu soo qaaday wadamo kale uu ka xishooday waayo wax lagu qabsanayaa jiray Soomaaliya wax looga baqama jiray Yoweri Museveni shalay markii madaxweynaha maxaan ku dhahay Maxamed Siyaad Barre dawladda dhexe Soomaaliya dhisnay erayga iyo eray la mid ku dhow midna ma oran karin wuxuu dhaxdhaxadinayay dawladda Uganda iyo Tanzania oo saysta waliba Uganda uu garab siiyay waxa weeye Soomaaliya abaal bay ku leedahay Uganda
وحاول يورمي سبني وأوجد ما أنت إنه أرجع يداهو إذا ما ذكرت أنا وإذا ما حنقولها هاي تنجار هاندي يبقى ودن كيسي سيستم نوع يسوي واحد قبطان حبيرتنا نقوله ملأ وحاول ملح بنان سواء المال بكرة داعي وحنا ولونا أنه أتصنع يا إنه فرمات إذا ما ذا بحيداه ودن كان إنه كساره سيدا أقول أقصى بدنا إنه حديد كله وتشر حديد كله جوي جماعة قرمها إرجع جدي في دي مقدشو وحكاهم كان إرجوجي